wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa waxa ay maanta soo agaasintay munaasabad qiimo leh oo lagu xusay maalinta cuntada adduunka oo ku beegan 16 bisha tobnaad oo sanad walba laga xuso adduunka oo dhan. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, xubno kale oo ka tirsan wasaaradda, hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda iyo waliba beeralayda kala duwan ee ku nool Soomaaliland. ugu horeynba waxa halkaasi munaasabadaasi ka hadlay isla markaana sharaxay ahamiyadda ay maalintani leedahay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo waliba mid kamid ah beeralaydii ka soo qayb gashay ee ku soo bandhigaysay munaasabadaasi dalagga kala duwan ee ay beeraan. 1945kii ayay ahayd markii ugu horeysay la aqoonsaday maalinta, laakiin wuxuu golaha qaramada midoobay uu ansixiyay sanadka December 5 sanadka markuu ahaa 1980 oo imika laga joogo 38 sanadood. sanad walba munaasabadan abaabulkeeda waxaa iska kaashada wasaaradda horumarinta beeraha iyo dhammaan bahda beeraha qayb kastoo ay yihiinba, iyadoo ujeedadeeduna ay tahay sidii loo wacyigelin lahaa wax soo saarkana sare loogu qaadi lahaa. ku hadlaya magaca beeralayda guud ahaan waddanka Soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa horta wasiirka wasaaradda beeraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta dawladdan ay maanta doonayso inay ku nuxnuxsato sidii wax soo saar loo gaari lahaa. isku filaansho gaari mayno weli marka reality-ga doonayno, laakiin waxaynu bilaabaynaa wadadii horumarka beeraha aynu bilaabaynaa. qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland ayaa iyaguna munaasabadaasi ka soo jeediyay kelmado. waxaa yeelay walaalayaal, haddii aynaan dhiirigelinin dadka beeralayda ee wax soo saaraya oo inaan waxay soo saaraan ka iibsanin ma suurtagelaysa in wax la soo saaro. beeralaydu waxay ahaayeen kuwii iyagu cagafna aan loo geyn jirin, lacag aan loogu geli jirin, cidina la haramayn jirin, cidina duduwi jirin, cidina nin walba iyo gabar walba iyadu isxiqaamaysay lahaay. maantana wasiirka beeruhu wixii idinla dul taagaya cagaftii, wixii idinla dul taagaya siidkii. macnaha loo dhigaa wax kale maaha. xigmadda ugu weyn ee ku jirta waxa weeye in qofka bini'aadankii uu si sharfan u noolaado oo uu wax la soo baxo. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Seede oo hormood u ah wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa isagu ka hadlay ahamiyadda ay maalintani leedahay iyo waliba dalagyada kala duwan ee beeralayda Soomaaliland ay soo saarto, isagoona carabka ku dhuftay in dhawaan la filayo in laga maarmo waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo kuna filnaadaan dalagga ka soo go'a Soomaaliland. waxa caalamka loo sii socdaa oo wadamadan adduunka loo sii socdaa wadan walba inuu wax soo saarkiisa kor u qaado, waayo waxa lagu tartamayaa ciidda, waxa lagu tartamayaa wax soo saarka. waxaad arkaysaan in adduunyada ay u sii socdo dhinacii wax soo saarka, marka wadan walba hadda wuxuu gaarayaa in waxa isaga ka soo saara isaga keligii ku filnaado. haddii markaa reer Soomaaliland ay doonaan inay cuntada dibadda ku tiirsadaan yaa cuntada inoo keenaya. marka waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno tijaarteenna iyo dowladda iyo beeralayda iyo dhammaan inaynu isku tashanno sidii aynu dalkeenna wax uga soo saari lahayd. raddii wasaaradda horumarinta beeraha iyadoo ka duulaysa siyaasadda dowladda ee uu hoggaanka noogu hayo mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaanu rabnaa inaanu taasi xoojinno. waana markii ugu horeysay ee ay xukuumaddu talada maanta haysaa miisaaniyadda ku darto 3 mashruuc oo aanu ka hirgelinay 3 gobol oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland. inagoo aan ogtiin dhaqaaleedu inuu kooban yahay, waxaanu iminkana ku dari doonaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo inaanu gobollada Sool iyo Sanaagna ka hirgelinayno wax soo saarka oo aan awood badan saarayno, iyo gobolka Awdal. gobollada 3 gobol maanta ku daraynaa sanadka soo socda haddii la yidhaahdo. waxa gobol walba aanu samaynayno waxyaabaha uu gobolkaas u yahay wax soo saarkiisa oo aanu gobollada u qaybin doono. gobolba in lagu tixgelin doono miisaaniyadda siduu waxba la soo baxo si loogu tartamo wax soo saarka waddanka oo aynu uga maarano cunnada dibadda inagu imanaysa. munaasabadani ayaa waxaa lagu soo bandhigay isla markaana beeralayda kala duwan ee ku nool gobollada Soomaaliland ay ku soo bandhigeen dalagyada ay soo saaraan. gabagabadiina waxaa halkaasi lagu sameeyay qada sharaf lagu cunayay dalagga kala duwan ee ka soo baxa beeraha Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.